waxaan ahay ruux jiritaankaygu waxa uu dhexeeyaa khayaal iyo dhabnimo dareen mooye ma lihi jidh muuqdo il aadami arki karto ama gacan aadami haaban karto haddana inkastoo nolosha aan la igu tirin waxa suuragal ah mar walba inaan noqdo wax jiro oo nolosha qayb ka ah garaadka aadamuhu ma sugi karo sifadayda haddii aan gadoodo waxaan u ekaadaa holaca baarkiisa haddii aan muusoodana waxaan u ekaadaa uumiga cadeedhadada labadaasiba sida ay jiritaanka dabeecadda uga mid yihiin misena uusan midkoodna u ahayn wax jiro oo la taaban karo ayaan haatan la mid ahay aniguna caalamkan cadmiga ee jiritaanka ka horreeya waa mid aamusan oo mugdi ah wax kastoo ka mida waxay ku duugan yihiin mugdigaas gadaashiisa sida wax kasta looga filan karo meel mugdi ah ayay suuragal u tahay in caalamkani yahay mid sugan oo u jira si ka duwan nolosha caadiga ah sababtuna waa inuu yahay halka wax kasta oo jira ka soo bilowdeen abuurta ka hor dhammaan arwaaxdu waxay ku wada xidhiidhaa dareemo waa dareemo qaarkood geyaysiisa midow qaarna kala irdhaysiisa anigu maadaama aanan weli dhalan ruux walba oo halkan dareemadayadu isku waafaqaan waxaan ku rajo weynahay inaan adduunka kula kulmi doono mase ogeen xasuusta halkan mugdiga ah lagu sagootin doono iyo inaan adduunka la tegi doono halkaasna aan kaga sheekaysan doono qisadii ka horraysay dhalashadayada waxse aan ogahay in caalamkani ku egyahay dharaarta uu dhasho qof iga mid ah aniguna aan ka mid ahay dabadeedna ay halkaas ka bilaabmi doonto sheeko kale oo aan qayb ka ahay marar badan ayaan weydaartay sohodinta u dhaxaysa labadan caalam aniga oo ruux ah markastoo aan qaydka ku beegan adduunka iska faydan ah waxaan ugu tegayay wax la yaabigu noqdaa dadka adduunku waxay u nool yihiin nolol si walba uga duwan midda aan ku noolahay waa nolol xadaysan oo jidaysan wax kastaana ay u baahan yihiin sabab ka dambaysa si loo ogaado macnihiisa dhammaan nolosha dadku waa mid isku eg ayna qaabeeyaan xeerar xakamo u ah oo isla aadamuhu jidaystay xeerarkaasi waa kuwo dadafaynaya qofku inuu u noolaado gaddii uu dhashay xeerarkaas waxaa lagu yeedhaa xeerarka samaha iyo xumaha samuhu waa fal qofku ku kallifan yahay samayntiisa xumuhuna si taas la mida waxa uu noqon karaa yeelista qofku yeelo doonistiisa dhalanka ee ku abuuran dunida aan ku dhalan doono waa mid ballaadhan haddana sohodimuhu isbarkan yihiin wax kastoo aan fali doono waxaa loo kala saari doonaa fal xun oo hoos u dhigaya dadnimadayda iyo falsan oo kor u qaadi doono qofnimadayda sidaasoo ay tahayna wax ku kordhaya qofka aan ahay ma jiraan keliya aragtida togan ama taban ee dadku iga haysto ayaa koraysa dabcan dunidu waa mid aan jiritaankayga dan ka yeelan doonin balse keliya danaynaysa inaan waafaqo xeerarka ka dhaqan gashay sifada ugu runsan ee qofi ka yeelan karo waa doorashada iskii u doorto falkiisa ereygiisa iyo inuu iskii u noolaado middaasise waa mid aan suuragal ahayn dunida guudkeeda waayo dadkan dhammaan waxa qaabeeyey noloshooda xeerarkaas laga ebiyey dhaqamada diimaha iyo waayaha kala gedisan ay la nool yihiin sababtoo ah xorriyadda dunida taalla waa mid xadaysan oo leh barbilow iyo bardhammaan markii ugu horraysay ee aan dareemay inaan dhalan doono waxay ahayd maraan arkay aniga oo shaqlan oo ku hadoodilan meel yar oo cidhiidhi ah marnaba ma malaysanayn inaan ku sii nagaan doono halkan maadaama koritaankayga xawli u socday qasabado ayaa dhinac walba igaga xidhnaa oo qayb ka qaadanayay habdhismeedkayga caydiga ah maalin ayaan si faduulle qunyar u gujiyey xididkii ku qoofalnaa xuduntayda dabadeed dhammaan huluusbii yareed ee caydiga ahayd ayaa ila daryaantay oo cod aanan garanayn jiha uu ka yimi ayaa si deggan iigu yidhi sadkaagii waa u go'ayoo xilligaagii waa soo dhowaaday waxaan doonayaa inaad jiritaanka nolosha qayb ka noqotid oo aad dhalatid kortid dabeedna nolol abdale ku noolaatid si aad u dhimatid geeri xalaal ah ma aanan fahmin ujeeddada hadalkan dabadeed waxaan weydiiyey maxaad uga jeedaa nolol abdale geeri xalaal ah nolol abdale waa nolol wax laga raali yahay uu qofku yeelo isagoo dooran kara inuu falo waxuu raalli ka yahay isaga qudhiisu waa nolol geyaysiisa qofka in ruuxdiisa dadku u riyaaqaan jeeroo geeridiisa loo arko tiir jiritaanka dabeecadda ka mid ah oo dumay mar kale ayaan weydiiyey aniga oo wareersan ma waxaan jidhahayn oo kale ayaa ruuxda lagu lamaaniyaa marka ay malaa'igtu nafta ku afuufto dabadeed si deggan ayuu iigu warceliyey asaga oo ileh qof walba waxa ku human laba awoodood oo isceshanaya kuwaasoo gudihiisa isaga waxtar iyo waxyeelatoona aan u geysan karin waa laba awoodood oo uu mid si dhammaystiran u adeegsan karo midna uu adeegsan karo balse ay xadidan tahay labadaasi awoodood waa sharka iyo khayrka sharku waa awood dhammaystiran oo qofku qof kale quldha kaga jari karo
awoodda khayrkuse waa mid xadidan qofku inuu qof kale badbaadiyo mooye uusan ku abuuri karin sida uu sharka wax ugu dili karo dabcan awoodda sharku waxaa isugu taga jidhka iyo ruuxda halka awoodda khayrkuna ku kooban tahay ruuxda weydiin culus ayaa judhadiiba adduunkayga xushay dabadeedna isaga ayaan ku warceliyey aniga oo leh haddiiba qof walba adduunka la keenay isagaoo bayd cad oo xalaal ah maxaa qaar nolosha ugu xumaadaan qaarna ugu wanaagsanaadaan waxa uu ku jawaabay xumaanta iyo samaantu waa halbeegga kala saara laba qof oo midi xeerarka xakamaa u hoggaansamay midina jebiyey sidee loo helaa xornimada qofka ka soo go'day maadaama xeerarkani yihiin kuwo ablaga soo gaadh ah maxayse dhowrista xeerarkani uga sara martaa nafta aadamuhu muusan ahayn sayidka noolaha ayaan darandoori u weydiiyey warcelin degdeg oo aad mooddo inay u diyaarsanayd ayuu durba igu soo celiyey isaga oo leh qof waliba xor ayuu u yahay doonistiisa gaarka ah iyo inuu si waafiya u noolaado balse xornimadaasi waa inay noqotaa mid dhanka togan ka taagan wax kasta iyo mowqif kasta si taas la mida xeerarka xakamaa ee ujeedeeye nolosha la'aantood aadama ma jireen waayo iyagu waa macnaha nolosha halka uu isaguna ka yahay noolaha keliya ee macnaha leh ee dunida guud saaran waxaan ku idhi waa isla guryogeyn haddii qofka wax laga reebay iyo haddii wax la faraba isku si ayaanu u dareemayaa doonistiisa oo loo diiday iyo wuxuu diidan yahay oo lagu khasbo ama lagu sanduleeyo haddaba waa su'aal maanka doloolinaysa xornimadoo xad loo yeelaa miyaanay ahayn garaadka oo loo duleeyey xeerarkaas dadku lama taabtaanka ka dhigtay wuxuu yidhi xornimada aadamuhu dhanka togan kama xadidna oo qofku inuu samaan la yimaadaa waa waajib saaran oo isagu garan karo ama cid kale fari karto balse dhanka taban way ka xadidan tahay sababtoo ah taasi waxay waxyeello ku noqon kartaa xornimada qof kale haddiiba aan taada kuu raaco aan xakamaha aad isudhay qaato akhlaaqdu heerka ay joogto ee ah xeer guud ma ka soo degi kartaa oo ma iman kartaa heer qofeed iyada oo la tixgelinayo garaadka korreeye aadamaha lagu galladay maya taasi suurtagal ma aha waayo waxay ka hor imanaysaa habka wada noolaanshaha waxaanay weeqi doontaa toosnaanta iyo qiyamka bulshada heerka ugu hooseeya ee macno la'aanta ayayna sababi kartaa iyabal ayaa jawaabahaas ka kaniga galay anigoo isdiidsiinaya inuu dareenkayga fahmo ayaan dhinac kale ka weydiiyey oo idhi maxaa keenay in nafurku gaadho heer uu qofku niyadsamaan naftiisa u loogo mabda' uu aaminsan yahay dartiis isagoo haddana nolosha ka rajo dhigin muwaanahay naftiisu mid qaaliya oo wax kasta ka qaalisan wuxuu iigu jawaabay nafurku ama sadqayntu waa jacayl halka ugu dambaysa ee la gaadho waana hibayn furan oo qofku wixii ugu qaalisanayd baxsanayo sida ruuxdiisa oo kale geeridu markan ma aha safar uu qofku ku sagootinayo wax walba oo uu jeclaa balse waa eriduu ka gelayo duni iyadu fasir u ah noloshii hore waana halka ujeeddada noloshu ku idlaato anigoo ujeeddadaas ka sii fakaraya ayaan haddana mar kale weydiin u holladay oo isla halkii abbaaraysa aniga oo leh maxay u dhacdaa in qofku qof kale oo keliya damaaciyey jacaylna u qaaday naftiisa u halligaa miyaysan taasi heer macno la'aan ah gaadhi karin mar haddiiba qofku ajashiisa u gooyey qof kale oo nool doonis iyo damac ma laha qofka jacaylkiisu nafurid gaadho damaciisa kalena waxa jaangooyey naftaa kale ee darteed wax loo huray nafta wax loo huray waxay ku qasban tahay inay loodsanto oo ay gorrada laadlaadiso sida addoon yar si arwaaxdu u midowdo haddii ay midig galbato arwaaxdu waxay ku midoobayaan qalbiga midda kale ee iyadu sii qoyan maya abadan suuragal ma ahayn heerkan qofi gaadhi karo oo ruuxdiisii labada caalam isku soo martay uu u loogi karo mid kale soo ma dhici karto in ay dadku qofka ku xasuustaan wixii uu u taray oo keliya danaysiga iyo anaaniyadda dadku sow ma keeni karto inay qofka ku ammaanaan sida uu doonistooda uga soo dhalaalay ama u yeelay oo keliya haddaba si taas ka duwan qofka ka diida sow isla anaaniyaddaas darteed uma nici karaan oo umaba fogeeyaan soo ma habboona in qeexidda noloshiisa qof walba isaga loo daayo si uu macno iyo ujeeddo uga helo halxidhaalahan kowniga ah balse maxay dadku nolosha isku siiyaan iyagoo markii horeba wax la sheega ahayn marka aan sidaas leeyahay waxaan gujinayaa uurka hooyaday dabadeedna waxaan xasuustay aniga laftaydu inaanan wax jiraba ahayn oo aan keliya ahay uur jiif la doodaysa qofkii dhali lahaa